kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution dad ku cusub tahay subscribe ka saar beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay oo noqotid kuwa u hor daawada hala hilmaamin inaad like saartid barnaamijka ana wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan waa mahadsantiin hordhicina labaad Introduction to the TCP and UDP and TCP iyo UDP maxay yihiin kelmadahan horta waa inaad baratid TCP waxa laga soo gaabsaday ama laga soo gaabiyay Transmission Control Protocols UDP na waxa laga soo gaabiyay User Datagram Protocol waa labada method network information marka loo dirayo between computers ay isticmaalayaan applicationsku labada method bay maraan labada method marka waxay amba labada dariiq amba labada nidaam waxay ku kala duwan yihiin waxay isticmaalaan system aad iyo aad u kala duwan TCP haddaan u nimaadno on barbar dhigno UDP TCP waxa la yiraahdaa waa reliable protocol waa protocol loogu talagalay in si reliable oo joogto ah oo informationkii oo la hubo dhinaca kale ee loo diray inay gaadho inta badan waxaad aragtiin dadku markay boosaha dirayaan DHL iyo FedEx iyo kuwa kaleba iyo dadka UK jooga for special delivery ayaa lagu diraa ama register waxa lagu diraa register boss so qofkii kale markuu helo ninka bossmanka ee sida wuxuu rabaa inaad saxeexdid saxeexi markaa qofkii uu ku soo celinaya tracking buu leeyahay trackingkii markaa waxaad ogaanaysaa kaloo meeshay socoto inuu qofkii helay so TCP waa tracking system macnaha waxa weeye three-way shake balayda feedback bay kuu soo celinaysaa inuu dhinacii kala helay waa very important saasi kaga duwantay markaa UDP isagu waa unreliable but best effort protocol isagu waxba kama gelin inaad qofkii kala helay in kale informationka uu diraya uu ka dhaqso badan yahay macnaha xagga dirida laakiin xagga security-ga mid ka fiican TCP TCP waxaan u isticmaalnaa sida website-dada galno web serverska file transfer downloadka waxa internet ka soo download gareyno emailada aan galno bangigaaga markaad connected la sameynaysid aad gelisid maxaa account-kaaga online-kii waxaan isticmaalnaa TCP sababtoo ah TCP waxay hubinaysaa oo ay tracking sameynaysaa in tahay adigii bangigii saasay sameynaysaa markaa waxa kaloo kamid ah file transfer email markaad dirayso always waxaad tiraahdaa your email has been sent message baa kuu soo baxay your email has been sent taas waxay ku tusaysaa inaad isticmaalaysa TCP waxaad diraysaa email address qaldan baad ku dirtay emailkii information baa kugu soo noqonaya waxa la emailkaagii ma dirsamin waxa la isticmaalaya TCP haddii UDP la isticmaalayo message back maad hesheen markaas aad ogaanaysaa inaad emailka addresska aad ku dirtay emailku inuu qaldan yahay marka TCP saa faa'iidooyinkaas ay leedahay waxay kaloo leedahay downloading from internet markaad wax ka soo download garaynayso had iyo jeer waad aragtiin timekii internetka wax ku soo download garaynaysay wuxuu ku siinayaa downloading speedkaagu intuu leegyahay iyo timeka uu ku dhammaynayo sometimes waxaad arkaysaa downloading speedkii amba intii aad soo download garaynaysa tan ay leeg tahay timekii oo badanaya that means packet markuu la scroobo ay feedback weydo in lagu soo diro haddana dib ayay u diraysaa send and receive wax la yiraahdo ciyaarsa send and receive so number bay ku diraysaa TCP oo kaliya ayaan baran doonaa inoo soo socota waxay tracking sameynaysaa maan helin markayna helin information feedback dib bay haddana u diraysaa saasay kaga duwan tahay so UDP waxa loo isticmaalaa domain name systemka triple file transfer protocol la yiraahdo voice and video streaming online multiplayer games waxa kamid waxa loo isticmaalaa waxyaalaha online-ka ah streaming-ka socda sida
footballka aan daawanano videoyada, gameska aan ciyaarano, telefoonka aan ku hadlano maxaa la idhaahdaa voice over IP internetka dhex maraya sida Skype ayaa kamida, WhatsApp oo kala kamida, maxaan ku idhaa wax kasta oo internetka dhex mara oo voice calls baa kamida. wuxuu uga mid yahay sometimes aniga adigu haddaan isma quleyno on telephone WhatsApp kuu soo diro oo internetka xumaado, waxa weeyaan haddaan TCP aan isticmaali lahayn codkii intii adiga mar hebel cali maxamed ma maqlasaan ku ceeliya moogta. haddii TCP aan isticmaali hadalkaas kugu soo noqon lahaa, laakiin maxaan isticmaalayaa UDP. so UDP packet loss markaas uu dhaco waxba kama gelin, meel cusub ayaad ka bilaabaysaa. marka waxyaalahaas ayay ku fiican tahay. TCP marka waxaad ogaatiin inay tahay reliable connection oriented na waa la yidhaahdaa segment and retransmission, macnaha markay dirto ay weydo feedback haddana retransmission dib bay u diraysaa. and flow waxay raacaysaa control through windowing, iyadoo markay hal mar dirto ay feedback hesho haddana 1 2 3 ayay diraysaa, haddana number 4 ayay ku helaysaa acknowledgementiga. segment ayay ku diraysaa acknowledgement segment ayay helaysaa. marka UDP isagu waa unreliable, san hore u sheegnay, connectionless waxba kama gelin, no windowing male, no sequencing male, no acknowledgementina male, taasuu kaga duwan yahay. okay, user datagram protocols packetka marka laga hadlaya, protocolkii marka la diro ee packetkii lagu rido u dirmayo, ayaan eeganaa differentiga udhexeeya. UDP wuxuu isticmaala waxa la yidhaahdo real time operating system. real time operating system buu isticmaalaa. video conference-ka kamid a, dadku markay maxaa la yidhaha ay ku sheekeysanayaan Skype conference, waxaa kaloo kamid a Zoom-ta kamid a iyo qaar kaloo badan. okay, 16-bit source borders ayuu ku diraa, destinationkuna waa 16 destination borders bit, 16 UDP link dherarku intuu leegyahay, jackuna waa 16 iyo datada. okay, TCP sending and receive email, internet banking, send SMS, waxaa oo dhan. SMS qaldan weligaa fariin ma u dirtay qof oo ma kugu soo noqotay, waxa weeye waxaa isticmaalaysaa TCP communication. okay, TCP sida u shaqeyso halkan ay markaa inooga badan. TCP hand-way shake amba 3 hand-way shake baa la yidhaahdaa. information baan dirayaa, waxaan leeyahay from PC amba PC1 amba H1 ayaan H2 u dirayaa. markaan saa u diro TCP method ayaan isticmaalayaa, transport layer. so waxaan idhi send segment number 1 baan diray. this guy wuxuu igu soo jawaabayaa I receive segment 1. so markaa acknowledgement wuxuu soo dirayaa waxay ka midantahay acknowledgement segment number 2. okay, waan helay kaagii, so number 2 ayuu igu soo jawaabayaa. okay, segment 1 markaan diro this guy and segment act 2 wuu igu soo jawaabayaa, haddana mid kalena haddana u diraya. so segment 100 aan u diray, 101 buu igu soo jawaabaya. macnaha saas uu shaqeynaya, waa 3 hand-way shake. okay, halka waxaad ujeediin iyadii TCP-dii baan sii wadnaa. connection establishment and termination ayay sameysaa. connection establishment and termination web browser ayaa xaggan yaalla, computerkii aad gelisay for example, halkana waxaa yaalla computerkii companyga web serverkii. okay, so computerkan ayaad rabtaa inaad ka geshid Google for example amba any website amba board 80 ayaad waxaad gelaysaa web server. so send
destination port aad rabtid inaad gaadhid waa 80 source portka adi computerkaa ka yimid number ayuu computer ku diraya waa 49155 acknowledgement port 80 wuxuu kusoo dirayaa sin ak wax la idhaa so waxay ka imanaysaa port 80 waxayna imanaysaa port 49155 oo kana okay waan helay buu leeyahay haddana computerkayga haddana mar labaad u jawaabayo le active waan helay requestigaaga so saasuu shaqeeyaa markaasuu iskala jaraya information oo dhamaystirmaya okay heerka TCP haddaan eegno aad iyo aad buu weyn yahay tii hore wuxuu ahaa 16 iyo 16 iyo 16 iyo 16 iyo 16 tan wuxuu noqonayaa 16 source ports 16 bit destination ports 32 bit segment number 32 bit acknowledgement number waa 64 xaggana waa 16 plus 60 waa 32 wuxuu kaluu leeyahay flags buu leeyahay 16 bit window size buu leeyahay 16 bit TCP segment so delay baa ku jira TCP header laakiin waa more secure information keeda kadibna datadii baa ku jirta TCP window size scaling ayaan eegaynaa wuxuu ku bilaabaa start small window size segment small buu ku bilaabayaa so wuxuu leeyahay computer 1 to computer 2 so wuxuu isticmaalaya TCP segment 1 buu diray acknowledgement 2 buu soo jawaabay okay waayo connection wuu fiican yahay haddana mar labaad wuxuu diraya computer 1 amba H1 waxay diraysaa segment 2 3 okay H2 amba computer 2 wuxuu soo jawaabayaa 4 labadiiba waan helay okay that's good send me wax kale soo dir wuxuu u dirayaa segment 4 5 6 7 for example ayuu dirayaa H1 uu dirayaa 1 2 4 5 6 7 ayuu u diray H2 wuxuu ku soo jawaabayaa 7 8 sorry acknowledgement hal acknowledgement uu soo diray marka connection saas u shaqeeya kaas la yiraahdaa window sizing scaling introduction to the DNS waxa laga soo gaabsaday oo soo baray waa domain name system and committee plus baan ku soo baranay domain name system kani waxa weeye wuxuu noo sameeyaa magaca amba lambarka ay magaca ku bedelaa magacana wuxuu ku bedelaa numbers IP address so root ajirta root amba xididada asalka oo ah root baa jira rootka markaa waxa ka sii qaybsamo waxa ka sii farcama .com .net waa company comku netna waa network organization and education peace kama garay wax laga soo gaabsaday tana waa government saasa kamida Cisco small ba ayaa la sameeyay subdomain ba la sameyn karaa Cisco ayaa kamida Berkeley ba kamida saaso kale waad sameyn kartaa inaga website-keenu waxa weeye somali amba somts.com oo kale so inta badan dad company tahay com baad sameysanaysaa .com magaca domainkaaga .com marka qoladan ayaa laga iibsadaa rootka DNS rootka iskale network waxa kaloo jirta wadanada jirta imiga Soomaaliya waa SO UK kale waa .UK US oo kale waa .US so wadanadana waa la raaciyaa and benefitka ay leedahay OSM modelis waxa kamid ah oo meesha network troubleshooting-ga lagu fahmo waa qaanuun iyo nidaam mideeyay in network ay wada shaqeyn karaan so faa'iidada kale leedahay troubleshooting network amba tissue marka la sameynayana waa la isticmaalaa so tissue marka problem at solve garaysid xagga sare iyo xagga hoose baa laga bilaabaa
so xagga hoose haddaan ka bilowno physical waxaad eegaysaa hardware-ku inuu xadhigu ku jiro physically inuu ku jiro wax kalood huminaysaa inuu switchku shidan yahay ama meesha dabku ay shidan tahay kadib baad u gudbi kartaa waxyaalihii kale xagga sare waxaad kasoo bilaabi kartaa applications in security waxaasi jiro diagnosing kadibna solution problem report waa report garanaysaa diagnosing baad sameynaysaa diagnosis waa cilad baadhasa ciladiisa baadhasa kadibna waxaad solution xal kiibaad keenaysa haddaan wax yar dib inugu noqdo physical muxuu ahaa waa layer 1 data muxuu ahaa layer 2 network muxuu ahaa layer 3 transport muxuu ahaa layer 4 session muxuu ahaa layer 5 presentation muxuu layer 6 application wuxuu ahaa layer 7 okay physicalka waxaa la dhigaa waxa la wixii cableisa datada waxa tegaya data linkska waxa tegaya layer 2 waxa tegaya switcheska Cisco switches iyo another switches network waxa tegaya routerska transport waxa tegaya application kii aan soo isticmaalay TCP UDP ayaa xagga tegaysa sessionska waxa loo isticmaalaa like encryption presentationna waxa weeye waa decoding iyo decryption iyo encryption oo loo isticmaalaa applicationna waa application isticmaalana okay guys this is very important to understand introduction to the Cisco iOS CLI command line interface-ka inaad fahantid waa very important hardware sidan oo kale ah ayaad physically configuration ku samayn doontaa in real life hardware sidan oo kale ah hardware-ka markaad soo iibisida ugu horeeya waxaa loo baahan yahay in computer lagu xidho haddii kale managementii umaad samayn kartid intaanad network ku xidhin so waxaa la isticmaalaa cable-kan oo loo yaqaano console cable marka waa physical access ayaad ugu xidhaysaa dhinaca RG45 ku halkan ay ku xidhantaa bluega ah RG45 console boardway dhinaca kalena computerka lagu xidhaa so labadani way isku xidhmayaan qaar waxaad helaysaa console cable dhinacana USB ka ah dhinacana ka ah RG45 so xagga RG45 ku waxay gelaysaa routerkan bay switchka kani waxaan malaynayaa waa Cisco switch catalog 2960 serial kuwani waa internet portski amba USB dana waa laga sameeyaa meesha USB da okay kaasi waa physical access kadib markaa intaa samaysid access to the Cisco ISO CLI command line interface ayaad gelaysaa kadib meeshaas configuration ka samaysaa console cable baad u baahan tahay markaad intaa samaysid hadhow cable-ka waad ka tuuraysaa network aad ku xidhaysaa waxaad isticmaal waxaad ku gelaysaa remotely si software adigoo isticmaalaya telnet okay telnet waa very important telnet ayaad configuration u sameynaysaa si aad physically hadda jeer ugu baahan IP address baad siinaysaa aad ku manage garaysid telnet waa isticmaalaysaa telnet kulley secure maaha waan tijaabin doonaa waan tusi doonaa telnet siduu secure ka yahay SSH oo security shell ayaad isticmaaltaan ugu fiican amba waxaad isticmaalaysaa web server HTTP and hypertext transfer protocols ayaad isticmaalaysaa okay waayahay marka ugu horeysa computerkaaga waxa lagaaga baahan yahay inaad soo download garaysatid software-kan wuxuu kala turjumayaa computerkaaga iyo hardware-kan aad soo iibsatay amba marka ugu horeysa aad configuration ku sameynaysid waayahay software-kan waxaa la dhahaa party configuration security CRT iyo qaar kale jira party amba booty computerka markaad gelisid waxaad doonaysaa serial markaad dooratid guys this is for jobs kana inta badan waa lagu weydiinayaa waa inaad taqaanid tani very important so halkan serialka ayaa dooranaysaa com1 wax la yidhaha ayaa jira iyo com2 iyo com3 si aad u garatid exactly com1 xagay ka tahay computerkaaga tegaysaa device manager kadibna waxaad tegaysaa port coms kadibna waxaad doonaysaa USB serial port halkan imiga waxaan haysanaa inagu maxaan haysanaa com4 okay
amba computer taga samaysa searchka waxaad ku qoraysaa div management.msc amba device manager whatsoever saa doonto ku tag kadibna lambarkii ayaad xaggan ku qoraysaa lambarkii exactly computerkaaga ahaa serial baa xaggan doonaysa kadibna open baad odhanaysaa kadibna wuxuu ku geynayaa softwarekii ayaa toos u gelaysaa so waynu tusi doonaa insha allah haddii la idhaahdo markaan laabka samaynano ayaan u iman doonaa waayahay configuration marka la sameynayo computerka amba switchka waxaa la rabaa inaad fahantid tallaabooyinkan amba jaranjarooyinkan la isticmaalo jaranjarada koobaad switchku sidan uu egyahay switchku marka ugu horeysa amba computerka sidan uu egyahay switch iyo calaamadan ka yar mise waa ka weyn switch calaamadaa ka weyn ayaad arkaysaa bigger amba greater user mode ba la idhaa saas marka user mode okay si aad enable mode u tagtid waxaad ku qoraysaa enable waa commandka ugu horeeya ee ku geynaya enable mode so enable mode baad joogtaa markaa hadda calaamadii waxay isku bedeshay h amba h calaamadaas isku bedeshay enable mode baad joogtaa halkan wax alla waxaad ka bedeli kartaa ma jirto laakiin waxaad isticmaalaysaa show commands command la idhaa show interface brief show functions show clocks waxyaalaha aad arki kartid unbaad ka hari kartaa laakiin configuration kuma samayn kartid si aad markaa gudaha ugu sii dhaadhacdid waxaad ku qoraysaa configure terminal waxaa soo baxaysa markaa switchka magaciisii amba routerka magaciisii iyo adoo jooga meesha la idhaahdo config hadda configurationkii baan sameynayna so calaamadiina way kula socotaa configuration mode baa la idhaa markaa xaggan configuration mode okay haddaad markaa haddaba sub usii dhaadhacis hoos haddaad usii deganaysid ood interface baan doonaa interface fa01/fa0/1 waxaa la idhaha sub configuration mode meel hoose ayaad configuration kusii sameynaysaa si aad halkii sare ugu noqotid exit hal mar baad taabanaysaa wuxuu ku geenayaa jaranjartii taad ka sarreysay oo configuration mode exit kalaad kusii dhufanaysaa wuxuu ku geenayaa enable mode exit kalaad kusii dhufanaysaa wuxuu ku geenayaa user mode haddaad rabtid hal mar inaad kor u noqotid waxaad ku dhufanaysaa control c alway wuxuu ku geenayaa enable mode wayahay guys waxaan xaggan inagu yar adkeynayaa had iyo jeer ardayda amba qofka wax baranaya marka ugu horeysa commandkan muxuu la shaqeyn lahay bodhanaya isagoo ku qoraya meel qaldan marka waa inaad fahantid jaranjaradani say u shaqeyso conclusion keen waxa weeye waxaan kusoo baranay how to connect it to the Cisco catalog switches with a console cable waxaan kaloo soo baranay how to use a terminal emulator booty to connect into your switches, the boot up sentences, difference between user mode and enable mode waxa u dhexeeya privilege mode configuration mode ayaan soo aragnay what show commands are and some examples of configuration commands how to delete startup configuration kuwana waa intusi doonaa how to use CLI features like auto completing the question mark and output waxaasi ayaan baran doonaa